سلام يا سلام وحاسو بلودي ciidankii xooga ee dalka waa kooxda Bambeyda oo hogaaminaysa ciidamada booliska ee dalka ma sha Allah ciidanka boolisku waxa ay kamid yihiin laf dhabarta ay ku joogaan ama ay nabad ku tahay gobolada Puntland waa hagaag ciidankii booliska ee dalka oo la faahantooda ka qayb qaadanaya ama kaalin mugle kaga jira bandhigani maanta ka soconaya barxadda weyn ee magaalada Garowe ee xarunta Puntland waa boqolaal kamid ah ciidamada booliska ee dalka kooxda Bambeyda ayaa u garaacaysa waxaana ay halkani ku marayaan bandhigani iyaga oo gaardigooda ka soo bilaabay cirifka shishe ee magaalada Garowe ee xarunta dowladda Puntland haddana waxa ay marayaan barxadda oo ay ku sugayeen dadkii iyo madaxdii dowladda Puntland oo ay salaanta halkan ku siinayaan ciidankii asluubta ciidankii booliska ee dalka boolisku waxay kamid yihiin kooxaha kaaba dhinaca sharciga iyo ammaanka dalka ya salaam waa ciidankii daraawiishta ee dalka ciidanka daraawiishtu waxa ay inta badan ay ku jiraan kuna dadaalaan difaaca dalka jiidaha hore iyo ilaalinta xuduudaha ciidanka daraawiishta ee dalka dowladda Puntland waxa ay hadda ka qayb qaadanayaan gaarda ciyaarka iyo socodka iyo bandhiga kala duwan ee ka dhacaya barxadda ya salaam waa ciidanka xooga waa ciidanka ay ku hurdaan kuna nastaan shacabweynaha ku dhaqan dowladda Puntland goboladeeda kala duwan ee sideedda ah ciidanka daraawiishtu waxa ay kamid yihiin laf dhabarta dhinaca ammaanka oo ay ku faanto dowladda Puntland سلام aad ayay u fara badan yihiin walina waa ay soo daba socdaan
وهجاك عيدن كدراويستو waxa ay soo gabagabeeyeen bandhigii waxaana ay dhamaanba ay dadkani ka qayb qaadanayeen kuna faraxsanaayeen bandhiga kala duwan ee ciidamada xoogga dalka iyo kooxaha kala duwan ee ururada qaybahooda kala duwan waxa hadda ay dhamaanba mar kale ku soo wareegayaan barxadda weyn ee magaalada Garowe waxaana muuqata sida ay dadku ugu faraxsan yihiin shacabkuna ay uga qayb qaadanayaan sugidda ammaanka ee halkani waxa halkaasi ka hadlay madaxweynaha dawladda Puntland oo la hadlay shacab weynihii aadka u faraha badnaa ee goobtaasi isugu yimid una yimid sida ay uga qayb qaadan lahaayeen